dhalinyaradii qaar ka mid ah waxay matalayaan waxa lagu sheegay hees shahaada wa sharaf ma lahan way ka sii fogaadeen basoon arag. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالم كي لورن جري ابن الخلدون لا يوم حريستوا عالم دنع بالشدة هوله هذا كتخصصي عنا كوها علم قبل الشدة ندي أساس بوهابا مد الدراسية دولك قلبات كي مدك لو الدراسية دولك مسلمين تبع أساس وها جندك تاريخنا الجوجي لا يوم حريست. أيوة الشعوب المقهورة شعوب تظروف تسكن ديبتي شعوب النفسية وتشبتي تسوء أخلاقها أخلاق ذا حماته لبا النقدان مرك شعوبته كليجي تلسني ماذا بالشداد أي صابرته لبا النقنيان كوا أدي الله كورنا هي يسودي بابا ظروف تاس اللي هو جالسدو تقول وضيال له يقانه وحكست حمانية وناك بانك سارينو سحوي هلك كسعت يكوا كلا ننع كلا كسوت شيء سدا أبسط بمعنى انت نقضك واحد جر او فوغادي كدبنا فلال حب bulshada ku soo celiyo nag ka dhiga labada nooc way u qaybsamaan bulshada kaliya talisnimada ay soo marto ama ku nool qof ama dawladnimo ama qabiil ahaan ama deegaan ahaan buu soo marto ama yasitaanka walaalahooda kala ciisayaan ee la degan ay soo marayso marka wuxuu leeyahay shucuubta yani sidaan kale u rafaadsan inta burburta jajabta baaba'ada kala tafaaraaruqda kala tagta la qaybsado kala irdhowda أخلاق ذا حماته بيجري ابن الخلدون من الله ونحرست محن وجدها هلكان كليه وحرم هنا تعليقي عن كور ربه امتحان كي صوماليات مرن كدليه قارهن قبل كمقدشو أما بنادر مقالة مقدشو مقالة ظلمان ولي جيب مركز ترى منفعة أيضا اللي قصوية وين الظلمان تاي تذكيري ويظلميان وصومالية وكحد قد بيان شرفت دلوك كجيديان هدنا نعفي يإني مالان أو أي عارض دنبرة كعبان بيربان امتحان للسمية صوت دونا بها النقدين وحال الشيء إن أي بلك كلان أرضي مقدشو أنا وحال لي هاي امتحان كود أسو عليا دليرة داس أما أرضي داس مساكين تاريم مقدشو ودعي كران قاركوت وصح لكن ترى انت لك معقول ما والغيا وقفك اللي يراهدو نتيجتي سوايرتاي انت سبقولك كاني وهوس لكن سيرو قف wax baranay waliba dugsi sare dhowr iyo 20 kun 25 kun iyo dheeraad ayaa imtixaanka galay banaadir waxa dhacay 8 kun oo arday wax ku dhow wax yar 8 kun dhiman waa 7 kun 849 ayaan filaya ayaa dhacday macnaha natiijo ma keenin waay xataa 20 ma keenin waay waa zero waay سبحانك يا رب ضد بمركة دلتي ضد ناس وحي كانت إلا يراهدو عيالك أما ردادا مقدشو كنا لو كدويهن قبل هذا كلام ومحاك كدوي دراجس كاكو بدن بيده حتى وسيركي وبشيري بامتحان قبل مرحلة ذكا وحاكو بدن بيدهن تيك توك ميلكس يسروح يانو ميلكس حتى ميدوك بيتال هذا ميل قاري جرتا تيك توك يو دراجس باكبوح أنا ضد كاسي واحد وجونية وضد كلا لقبين وامتحان سida ugu rida meesha kama muuqato saaddarteed ba bulshada aqoon-yahanada ee gobolka joogtay iyo dugsiyadii waxbarashada ay ka hadleen way dafireen oo ay muran ka muujiyeen oo ay cabasho ka muujiyeen yani ardayda muqdisho 3 meelood meel baa dhacday 3 u qaybi thuluth baa dhacay 3 marka loo qaybiyo meel baa hartay waay hatta natiijo yani hatta hoosama keenin waxba keenin waay waxba lama joogaan waay markaas waxa lagu sii daray naraagiska cunaaniyo TikTok isticmaalaan iyagoo looga dhigay kaligood inay arrinta u tahay dhalinyarta maanta joogta ee Soomaaliyeed ama muslimiinta waxay kala mid yihiin kuwa kale dhibaatada haysata oo ah inaysan haysan fikir iyo hadaf iyo ujeedo qalbigood waana sheegnay way isdiibaan marka bulshadu jajabto akhlaaqdeeduna waa xumaata markii kadib muranku batay dhalinyaradii qaar ka mid ah waxay matalayaan waxa lagu sheegay hees shahaada wa sharaf ma lahan way ka sii fogaadeen basoon arag wasiidur shahaada wa yani aqoon ba ma lahan ba wax loo yaqaan sharaf shahaada wa sharaf ma lahan subhanaka ya rabbi taasoo dhalinyaradii lagu sii dhiirigelinayo TikTok adan sii dhex fadhi meelaha ninkii wax raab lagu tilmaamay samee liana hadaf waqtigiisa kama haysto waqtigiisa noloshiisa uu gumaadaya oo dilaya ma haysto time management يعني وقت ماريسن مجرو
صدرت واسق ابن خلدون بلشده نوع marka u dhacdo tasuu akhlaaqaha akhlaaqdeeda xumata waana mid aan uga joognaba fisqiga fasaadka masaa'ibka taasoo keentay burburka 30 sano iyo 40 sano in laga bixin ummadina ilaahay hadda aysan niyad ba soo hayma way kala shaqaysan tahay marka u soo celiya ardadaas maysan dhicin taa maxaa keenay inaan dhaho wasiirkiiba wuxuu noo keenay inuu noo xaysiyo wiilka dhalinyarada waxay soo qaadeen oo ugu tilmaameen shahaada sharaf malaha waa wasiirka waxbarashada ee shahaadada ee dhalinyarada inay keensan waayeen natiijo lagu siiyo ku riday ba wuxuu leeyahay shahaado la'aantu waa sharaf yani shahaada sharaf malaha shaqaalka kama jirto jeebki waa maran yahay oo waa riimay wasiirkii baa soo qaatay wuxuu leeyahay sida idin muuqata subxaanaka ya rabbi waxaan dhageystay heestan xikmada badan wasiirkii waxbarashada ayaa saadahaya marka heestii dadkii oo dhan waxa noo muuqata inaan wareernay mid weyn iyo mid yarba marka maxaad dhalinyarta xataa haday natiijo yar keensadeen oo xataa luuq iyo gees ka soo galeen imtixaanka ma iska siis tan baaba sheegaysaa ku sheegaysaa xikmad tan ayaa xikmad ku sheegaysaa adeer macaan xikmadda tan aad ku sheegaysid oo caruurta ay waayeen maxay tahay wala yaabana heesta xikmadda badan xambaarsan la hawla wala quwwata illa billah akhru samaway oo ay dhalintu hibadooda ku soo bandhigayaan dareenka maskaxdooda ka guuxayana dhalinyaradu waa laf dhabarta bulshada waxay qayb ka yihiin dib u dhiska dalka iyo horumarinta adeegyada bulshada waxaan u baahanahay in aan u jihayno dhanka wacyigelinta iyo dhiirigelinta ubadkeen laakiin tan xikmadii dhiirigelin iyo wacyigelintoona maaha xitaa meeshay ku soo qaadeen say waqtahay fiiriye walaalay say waqtahay wasiirka beejkiisa soo gashadayba يعني ماشي كوسو قادنا واقشين قب يعني سومالي سان وايه وحبرشيدو سان وايه ايضا دان سان وايه مقدشة سان وايه بيوجيت كده لان بقرابك كدن بيه فرين بو بحنايا قشن قب يا waxay fariisteen meeshii qashinka adduunka dhan la keenay bay ku soo qaadeen hal abuur matan miya ma dhiirigelin ba wasakhnimada iyo qashinka dadka lagu dhiirigelinayo wasiirkii baa soo qaadanaya marka imtixaanka iska sii marka caruurta masaakiinta ay reer muqdisho dulminayna shucuubteena kale Soomaaliya tahay si u soo celiyo imtixaankooda may dhicin لأن هدي دعي لها هاي وحقيقي عدالة تاكل إسلام هاي وسيركو وحنا محيسيه نومنا سوق هذا لأنه وسيركو حبرشة وتربيتي وأبدك يا أخلاق دي ماشي كسر بحيث هتن نط حيسيني مركا ومتن حيسيني زي محن مده حكمة ده يحسون بل أفيرزا كوميتي ده حتى فيري كوميتي ده وحيلي يس شقة إيصاب بحضي حدا كعاي أنا جنا يعني السجى وحبرشة ده لقوا عاي بلي مركا حلقة وسجل بتري يسكت دفاعه reer Puntland wiilkaas yar ayay ka adeejiyeen goodax barre Puntland iyo ku taagnaa baa laga yaabaa inay wiilkaas soo dirta la mustacwa oo komiitida dadka bixinayaan wasiir adna ciyaal sharma boy hadii aad noqotay bas waaye laftirkaagu waxa laga yaabaa inaad dhacdo oo aadan soo bixin xukuumadda cusub ee la soo dhisi doono igu salaam sharma boy xitaa wasiiradii waa uu waalay maxaa ilmo loo dhahaa imtixaanka way ku dhaceen haduuba wasiirkoodii xirta sharma boy ka mid yahay la hawla wala quwwata illa billah komiitida ay Soomaalidu bixinayaan way yani qaabka xataa meesha lagu soo dhigayo iyo meesha wax oo dhan waxay ka bixinaysaa warqashinka gurta way shahaadadu shaqo ma aha sideedaba shaqo marka wax baranaysa shaqo inaad shahaadada ku helayso ma baahanba adoo shahaada haysta ayaad ka shaqaysanaysaa shaqo kasta shaqadu waa shaqo shahaada يعني هدي اللي كوريا ما كان قاطع معنا حفيز بافريزنتات ما حنا برافوم هاي الكوسه قحوه كاي صارت ما هن سوماليغا خلدان بفكر كيسه صدرت فكر كود دليرده باريح من نقدي لان محايله وامه قصبن واي ظروفته او قصبنتاي سياسي او فاسد كان قصبنت marka ciyaalka waa dulmideen aqoonyahankooda uu sheegay daladii waxbarashada muqdisho waa sheegay لأنه وهويجي وحبرشة حتى بربرك وحبرشة رسم قدين يمادي ماشي مدح أو هاي صدلها وقرح صدها مقدشة سيت شديت كنا حقول ويدعى وبمعنى السيرة حتى هرحب بكين أنا أعرف وقف أنت وحبني ما هرحب بكين واي حتى نتيجة يربو كين أنا مدي واد عين واي وانا إبروا لا شك إنك ماشي وحكو شيران وحلقات ضيرني حتى ضده كتاع أنت بلادي وقتك أي هيستر أنت أرض الله صحي ما بقى عدن كرتبه مركز بوبسيس الله ضفرين يا لغو صح marka ujeedkeedu waa maxay wasiirkeena waxbarashada iyo tarbiyada halka haduu marayo inaan wareernay oo waalanay oo dharka aan tuuro rabnaan isku saxiixna fayskii waa xun yahay
laga bixinayo dadka iyo waxbarashadii shahaada sharaf dhalinyartu way iska dhegeysanaya tigto iska dhex furanaya tan weliga iska qaada shahaada sharaf ma lahan shaqa waa la la-ya jeebkii waa halkaas iska fadhinaya wax kale yaa isdhiiba moogta waa isdhiiba subxaanaka ya rab wallaahi reer muqdisho waa dulmin waana dulmayi waana dhibayi dhibka ugu badan ayuu ku dhac magaalada muqdishaan ka hadlaya waa miskiin dhaawacan ilaahay haddana hadalkeedaan la dhegeysan siyaasigeedii iyo wadaadkeedii iyo qoomkii horjoogayaashii bulshadoo dhan aysan dan ka lahayd marka waxaan leeyahay haddii ay muqdisho hadli lahayd maxay dhihi lahayd waxay dhihi lahayd waan ka daalay baaba iyo burburka iyo dagaalada waxay dhihi lahayd 30 sano in ka badan ayaad sheeganaysaan inaad ijeceshihiin marka ay masaa'ib ku imaadaan kadibna cidiyihiinna ayaad igu dhaawacaysaan adigoo taa haddana sheeganaya waxay dhahaysaa haddii hadli lahayd oo la dhegeysan lahaa muqdisho waxaad u ooyeysaan aniga marka ay dhibaatooyinkii masaa'ib ku imaadaan kadibna doqonnimadiinna ayaad igu baabi'inaysaan iyo wax margarartar la-aantiinna waxaad ii qoraysaan gabayo adigoo ammaanaysaa qasaa'id adigu iyo heeso iyo hadallo kaloo murtiya ayaad igu qaadaysaan kadibna carabkiina waxshiga ah ayaad igu caayaysaan oo wax iga sheegaysaan oo igu nacladaysaan waxaad sheeganaysaan qulubtiinu in ay aniga ila jirto ayaa muqdisho leeyahay haddii hadli lahayd kadibna faa'iido kastoo aniga magacayga ku soo baxda waad qaybsanaysaan waana igu soo noqonaysaan kadib adinkoo igoogoynayo oo i jarjaraya muqdisho waxay dhihi lahayd haddii hadli lahayd waan ka daalay beentiinna waan ka daalay waa ka noogay been abuurkiina iyo xumaantiinna iyo hogaamiyaashiina nooc kasta yihiin ee faasidiinta ah waa ka daalay warkooda anoo kala qaadayn siyaasiyiintaas iyo hogaamiyaashiis dhammaan ayadoo xabadna laga reebayn beentooda iyo fasaadkooda iyo xumaantooda iyo caqli daradooda iyo xikmad la-aantooda waan ka daalay ayagoo haddana isku haysa inay xikmad ku taagan yihiin waa ikanaa bay leedahay hadday muqdisho hadli lahayd saanay dhihi lahay waa ikanaa waa i gubteen waa i naarteen waa i cadaabteen caanana waad iga sugaysaa dhallaan hooyadood iyo waalidkood sidaa ugu caasiyay hore looma arag saasay dhihi lahayd haddii muqdisho la wareysan lahaa oo ay hadli lahayd laakiin waa ka xumahay insha allahu tacaala baraaraheeduna waa soo noqon doonaa wayna iska buufin doontaa inta xumaanta ku wada iyo dhibaatada nooc kasta ay noqotaba ama siyaasi ha noqdo ama ururo iyo kooxo kale ha noqdeen ama nidaamyo kale ha noqdeen ama rafaad ha ahaado gurmad iyo gargaar iyo faraj waa helayaan masaakiinta halkaa ku nool insha allahu tacaala aad iyo aad baa umahadsantihiin allah idan xafido wallahi horaan u arkay qadiyadan imtixaankan iyo waxaan lasku tuurtuuraya marra jeclaysanana ka hadlay laakiin markaan wasiirkii waxbarashada oo dhallaankii tarbiyadeedii iyo toosinteedii iyo hanuunintii aan ka sugaynay arrinta noocaas noogu tilmaamay xikmad iyo hal abuur baa ka buuxa uurkayga waxbaa soo burqaday waa haysan kari waaya marka ila qaata marka aad noo mahadsantiin allah idan xafido jazaakum allahu khayran